soo gabagabowday iyagana waxaynu leenahay waan idin hambaleynaynaa waanu idin ducaynaynaa dadkii halkan ka hadlayo dhammaantood way idin duceeyeen waxaanu leenahay markaa mustaqbal wanaagsan baynu ilaahay idinka baryaynaa qarankiinana inaad u shaqaysaan baa lagama maarmaana waxaan leenahay markaa su'aal ay dadku had iyo jeer isweydiiyaanoo markaa waxay idhaahdaan maxay dowladda maxay u shaqan weyday maxaa loo shaqaalayn waaye su-aashaasi su-aal idin naasibta aqoonta aad barateen levelkii dadka la yidhaahdo intellectualiska gasheen waxaa ka soo gudubteen levelkii dadkii aan aqoon-yahanka ahayn waxaa ka soo gudubteen levelkii jahligaad ka soo gudubteen dadkii aqoon-yahankaabaa gasheen ninkii dowladda dalka maraykanka xukumi jiray 60 ilaa 63 ee Kennedy la odhan jiray ayaa ardayda iyo dhalinyarada wuxuu ugu maahmaahay ha isweydiinin wuxuu dalkaagu kuu qabanayo laakiin waxaad isweydiisaa adigu dalkaaga waxaad u qabanayso ardaydan jaamacadaha ka baxay aqoonta ay barteen cilmiga ay soo barteen jaamacadaheenna jaamacad aan lahayn laboratories ma leh jaamacadaheenna waxay sameeyeen research fara badan marka idinkoo cilmigaa bartay dabaqaaya isticmaalaya waxaa la rabaa inaa hal abuur keentaan hal abuurka iyo cilmiga ayaa wax dharan aad iyo aad baan idinku hambaleynaynaa adna aadan qolada dadka hadal hayaa horta sida hadeerta uu qabyatira u sheegay adna aadan wixii ay shaqaysatay hadday imika inoo soo bilowdo waa qof iyada oo yar oo idinka yar shaqo bilowday ilaa iyo intii ay shaqadaa wadayna ama farmasiyay lahayd ama shaqooyin international oo hay-adaha adduunyada ugu waaweyn ayay ka soo shaqaysay horta waxa laaliya waxay lahayd baana may dhigan meelna may gelinine dadweynaha iyo shicibka dib inoo gelisayoo cusbitaalka iyo jaamacaddaasay gashay deesow taajirad may ahaateen imika aynu nidhaahno sida tijaarteenna albaabkeeda aynu taagtaaganoo shaxaadayno maxaynu ugu abaalgudaynaa waxaynu ugu abaalgudaynaa bini aadmigan aadamahan ilaahay abuuray ciddii aan taariikh lahayni adduunyadan way hadhaa way luntaa way baabaadaa qaran walba iyo dal walba maxaanku idhaahdaaye waxaa lagu maamulaa taariikhdii halgankii waxa laaliyo wixii uu lahaa innaga taariikhdeennu inta badan ma badna cabdilaahi darawal cabdilaahi xuseen iimaan arrinkii hadalladii hadda halgankeydii waa maxaanku idhaahdaaye waa taariikh waa arrin suntan oo maxaa ka mid ah dee dalkan imika xaragadan iyo quruxdan iyo hablahan halkan dahabka wada qalalaxda leeyahay iyo waxaas miyay shalita jireen suud iyo daadiisa imika halkan fadhida hargeysa miyay jireen boorama miyay jireen burco miyay jireen magaalo kasta miyay jireen waxa dembi ahayd go-ashaalka ah in go-ashaala la gashadaa dembi bay ahayd waxaa la odhan jiray qudbista iyo snmt iyo qudunqadhaadhka iyo waxaasay ka tirsanyiin marka dhallinyaradiinan waxay u baahan tahay dalka South Africa Nelson Mandela markii la soo daayay 27 sanadood uu xidhnaa daadiina yaryar ee soo baxday ee berigii hore aan maxaanku idhaahday xorriyadda lahayn waxaa loo bixiyey born free generation dadkii xorriyadda ku dhashay waxa dowladda Ingiriiska waxay naga bixisay 2004 inaynu tagno doorashadii South Africa marka halkan waxa ka tagay commissionkii doorashada saddexdii xisbi qaran ee markaa jiray udub iyo ucid iyo kulmiye waxa ka tagay ururkan maxaanku idhaahday haweenkeen neegaad baa ka tagay waxa ka tagay qolada saxaafadda doorashadii waanu tagnay magaaladii Nelson Mandela ku dhashay ee
rogmashada ugu badan ee ay ka dhaceen ayaanu galay bowling stationkii markaanu ka soo baxnay ayaa islaam baanu la kulanay islaantii baan anigu su'aal weydiiyay waxaan ku yidhi yaad u codaynaysaa markaasay waxay ugu tiri intay qaylisay bay ugu tiri of course ANC waxaanu u codaynaynaa ANC markaasaan ku yidhi waxaad ugu codaynaysaa midabka iyo madowga soo maaha may bay tiri markaasaan waay hadda maxaad ugu codaynaysaa waxay tiri halkaa aynu imika taagannahay dariiqaa marka aan ka gudbaayo gaadhi iskamaan eegi jirin ey laygu soo daayo iyo cunaan ka baqi jiray bay tiri maanta ey ka baqi maayo haraarahu baan bidixdii midig baan eegayaayoo maxaan ku dhahdaayey gaadhi baan iska eegayaa somaliland waxa weeye waxa laynaga burburinayo raggii halkan ka qaylinayay qaylada ay dhigayaan masiibooyinka laynala rabaa waxa weeye waxaa la diidan yahay nabadgelyadan nidaamkan dowladnimadan ayaa la diidan yahay imika waxaad ka soo qaadaa wasaaradda tacliinta ee soomaaliya iyo wasaaradda tacliinta ee somaliland maxaa miisaaniyadda ku baxday gaaladu intay bixiso iyo inaku intaynu bixinno waxaa la diidan yahay ayadoo ninayna caawin doorashada berigii horaa laynaga caawinay ilaa axmed siilaanyo cidi inagama caawiso boqolkiiba boqol innagaa doorashadeenna imika bixina ayaga waa la gaadhsiin kari laayahay doorasho waa run arrinta haddeerta halkan laydinka farayay shicibkan dhallinyaradan iyo dadkan inay xorriyaddan iyo nabadgelyadan ay dalkan ay ilaaliyaan oo weliba ta ciidanka wasiirka daakhiliga iyo taliyaha ciidanka booliiska waxaan labadaba u soo bandhigayaa adna aadan haddii lasoo hadal qaado qaranka somaliland waa la soo hadal qaaday adna waa in la ilaaliyaa sow maaha qarannimada waa inaan ku ilaalinaa sida madaxweynaha iyo wasiirada iyo adna waa inay leedahay xayn mar haddii laba soo hadal qaaday waa in adna la ilaaliyaa marka waxaynu u baahannahay qarannimadaynu ilaashanaynaa dhallinyaradeenana waxaynu leenahay waxaa laydinku baray qarannimadaa laydinku baray qolonnimo cidna waxba laguma barin qolayaan laydinku hanuunsan qarankaa wax laydinku baray idinkuna waa in idin qaranka ilaalisaan waan idin hambaleynaynaa waxaan leenahay ilaahay mustaqbalka ha idiin wanaajiyo waalidkii idinku soo tabcayna waxaynu leenahay ilaahay waalid khayr qaba ha ka yeelo idinkana ubadkaa ku soo tacabteen waa in maxaanku dhahdaye aydun aad iyo aad u ilaalisaan weliba anigu hal shayna waan idinka degayaa dhallinyaradiina maanta jaamacadda ka baxday ee halkaa fadhida kuwa kale jaamacadaha ka baxay waalidka wax idin soo baray ma aha hantiilayaal ma wada aha ganacsadayaal ma wada aha dad lacag le ma aha qaar badan baa dadka danyartii ay wax soo bareen laba inkaaroodba way idinku dhacayaan haddaa hagaagsanaan weydaan brofesorada halkaa fadhiya ee habeenkiina idiin soo jeegi jiray duruusta idiin diyaarin jiray maalintiina wax idiin dhigi jiray ee idinku indhuhu maalin walba sidaa oo inta uga dhacaysay iyo waalidkii idinku soo tabcay labadaba inkaartooda way idinku dhacaysaa haddaa dad wanaagsan noqon weydaan ilaahay inkaartooda ha idin weydaariyo idinkana dad wanaagsan ha idinka dhigo qarankana u shaqeeya idinkuna naftiina shaqeeya cilmiga sii kororsada aad iyo aad baa yihiin adna waan garanaynaa qarankan waxaad gelisay adna waan garanaynaa tacabka ay gelisay adna waa qof tamar badan leh hadda jaamacadda iyo cusbitalka intan way ka shaqaysaa wasaaradda khaarijiga way la shaqaysaa madaxtooyada somaliland way la shaqaysaa qof intaa kari karaaba inagumaba jiro marka waxaynu leenahay allah inoo barakeeyo iyadana ilaahay cimriga ha u dheereeyo maanta waatan inoo sheegtay 3 casho ka hor bay u dabaaldegtay maalintii ay dhalatay waa qof ilbaxoo waxay haysataa iyadu maalintii dhalatay waxeediiba way haysataa marka waxaan leenahay allah ku barakeeyo allah ku gargaaro qarankana taariikhdaada iyo intaada waan ku haynaa idinkana allah idin barakeeyo xukuumadda hablaha inagala fadhiya iyo axsaabta iyo intuba way salaaman yihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu